halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bartaynu ku leenahay internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa Arbaco bisha Abriilna ay tahay 13 saacadda geeska Afrikada bari waxay dul taagan tahay 7 gow ah. wararka aan idinkugu hayno idaacadeena subaxnimona waxaa ka mid ah Mareykanka oo ku eedeeyay Putin inuu xasuuq ka geystay Ukraine. laba nin oo weeraray masaajid ay muslimiintu ku leeyihiin Mareykanka oo ay maxkamad xukuntay iyo dawladda Ingiriiska ayaa dhistay. wuxuu dhismaysu dhammaaday 1957 ayaa la galay iskuulka, markaana waxaa galay fasalkii afraad, shanaad iyo lixaad. waa warbixin ku saabsan mid ka mid ah iskuullada ugu faca weyn dhulka Soomaalida. barnaamijka waxaa soo saaray Axmed Badar, waxaa halkan in kala socodsiinaya anigoo ah Saxnuun Axmed. qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan iyo warar kaleba waa inoo soo socdaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdishakuur Casoowe. mahadsanid Saxnuun. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ficilada uu Ruushku ka samaynayo Ukraine ay u dhigmaan xasuuq. markii ugu horreysay ayuu adeegsaday ereygan xilli uu khudbad ku saabsan shidaalka ka jeedinayay gobolka Iowa. Mr. Biden ayaa goor dambena ku eedeeyey madaxweyne Putin in uu isku dayayo inuu meeshaba ka saaro jiritaanka muwaadinnimada Ukraine. waxa uu sheegay in hubaashii arrintani ay isaga ula muuqato sida xasuuq la samaynayo. dhanka kale, maamulka Biden ayaa laga dhowrayaa in ay sii ballaariyaan mashruuca ay hubka ku siinayaan dowladda Ukraine. horey waxa uu Mareykanku Ukraine ugu wareejiyey saanad military oo qiimaheedu u gaarayo 1.7 bilyan oo dollar. balse Ukraine ayaa rabta hub intaas ka badan kana culus sida diyaaradaha dagaalka iyo gantaalada artilleriga. ciidamada ammaanka ee dalka Ukraine ayaa gacanta ku dhigay siyaasiga ugu caansanaa dalkaas ee xulafada la ah dowladda Ruushka. madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa soo jeediyey in ninkan oo lagu magacaabo Viktor Medvedchuk uu ku beddesho maxaabiista reer Ukraine ee gacanta ugu jira Ruushka. waxaa la shaaciyey sawir uu ka muuqdo Mr. Medvedchuk oo gacmaha ka xiran kuna labisan dareeska militariga Ukraine. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo wasiirka maaliyadda Rishi Sunak ayaa ku gacan sayray baaqiyo loogu jeediyey inay xilalka iska casilaan kadib markii uu booliska dalkaas ku ganaaxay labadoodaba in ay jebiyeen shuruucda xakamaynta faafista cudurka COVID maadaama ay ka qayb galeen xaflad dhacday 2020. Mr. Johnson xaaskiisa Carrie ayaa sidoo kale la ganaaxay. saddexdooduba waxa ay raaligelin ka bixiyeen arrintaasi. taliska booliska ee magaalada New York ayaa sheegay in ay garteen qof la raadinayay oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay boosteejada gawaarida ee Brooklyn. 10 ruux ayaa ku dhaawacmay rasaas uu nin furay oo uu la beegsaday dad rakaab ah oo halkaas ku sugnaa subaxnimadii Talaadada. madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa cambaariyey weeraro isdaba joog ah oo lagu qaaday tuulooyin ku yaala gobolka waqooyiga dhexe ee dalkaas ee Plateau, kuwaasi oo lagu dilay in ka badan 150 ruux. madaxweyne Buhari ayaa weerarada xiriirka ah oo dhacay Axaddii ku tilmaamay fal argagixiso. ugu dambeyntiina, dadka ku nool gobolada waddanka Canada ee kala ah Saskatchewan iyo Manitoba ayaa bilaabay in ay raashinka iyo dawooyinka xilli hore sii iibsadaan, iyagoo cabsi xoog leh ka qaba wax laanta deegaanka ee dalkaasi ay ku tilmaantay duufaantii ugu xumeyd ee baraf iyo dabeelo iswato ah oo dalkaas ku soo fool leh. waana markii ugu horreysay ee duufaan noocan ah ay soo wajahdo Canada muddo 10 sano ah. warkii waanaga intaas. aan dib idinkugu celiyo Saxnuun. aad buu u mahadsan yahay Cabdishakuur Casoowe oo inoo akhrinayay warka caalamka. markana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. aynu ku bilowna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in uu xasuuq ka geystay Ukraine. markii ugu horreysay ayuu isticmaalay hadalkan isaga oo khudbad ka jeedinayay qiimo kororka shidaalka ee Iowa. Biden ayaa ku celiyay eedeynta isaga oo yiri Putin wuxuu isku dayayaa inuu tirtiro fikirka ah in la noqdo reer Ukraine. haddaba Axmed Badar oo isuudiyaha igula sugan ayaa inoo haya warka Ukraine. Axmed, maxaa ugu dambeeyay?
saxanuun dagaalka Ukraine ayaa imika badankiisa waxaa ka socda bariga dalkaasi Ukraine iyo Ruushkana waxay cududooda ciidan imika isugu geeyeen gobolka Donbass ee bariga Ukraine iyada oo Moscow ay bedeshay diiradda weerarada ay ku hayso gobolada kale dalkaasi. Dhanka kale dalka Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Ruushka Putin in xasuuq uu ka geystay dalkaasi Ukraine. Waxa uu sheegay Biden in cadeymaha la helayo ay sii kordhayaan taasi oo ku saabsan falal argagax leh oo Ruushka uu ku kacay ayna markaasi isagu la muuqato in arrintaasi ay tahay mid xasuuqa. Madaxweynaha Mareykanka ayaa horey waxa uu eedeeyay Ruushka in uu dambiyo dagaal ka geystay dalka Ukraine kadib markii boqolaal rayid ah lagu dilay magaalada Bucha iyo magaalooyin kale oo ka tirsan dalkaasi Ukraine. Ruushka ayaa beeniyay dhankooda in ay beegsadeen dad rayid ah waxaana madaxweyne Putin uu been abuur ku tilmaamay cadeymaha muujinaya tacadiyada ay geysteen la sheegay inay geysteen ciidamadiisa. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa ku tilmaamay ujeedooyinka militari ee Ruushka iyo Ukraine uu ka lahaa in markaasi intooda badan halkaasi laga fuliyay islamarkaana lagu guuleystay iyadoo ay jirto in ay dad badan oo rayid ah howlgalladaasi ay ku dhinteen. Mr. Putin waxa uu sheegay in ujeedadu ay tahay in la caawiyo dadka ku nool gobolka Donbass ee bariga Ukraine islamarkaana arrintaasi guulo laga gaaray. Так и будет. Нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятны. Tani waa ay dhici doontaa shaki kuma jiro. Hadafkeennu waa uu cad yahay waana sharaf. Bilowgii ayaan sheegay dib u raaca warkii ugu horreeyay ee aan soo saaray ee aan khudbadda ugu jeedinayay waddanka iyo ciidamada qalabka sida. Si toos ah ayaan u dejiyey hadafyada. Hadafka ugu weyni waa inaan caawinno dadka ku nool gobolka Donbass ee aan aqoonsannay sababtoo ah maamulka Kiev ee uu taageero reer galbeedku way diideen inay dhaqan geliyaan heshiiskii Minsk ee ujeedadiisu ahayd xal nabadeed oo lagu dhammeeyo dhibaatooyinka iyo jamhuuriyadaha labada dal. Si cad ayay u diideen. Madaxweynahooda ayaa si babliga u sheegay inuusan doonayn hal qodob oo ka mid ah heshiiskii Minsk, halka mas'uuliyiin kalena ay sheegeen in aysan suuragal ahayn in la dhaqan geliyo heshiisyadii Minsk ayna burburinayso waddanka. Si toos ah ayay u diideen. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlayay heshiis ay diiday Ukraine kaas oo ahaa heshiiskii Minsk lagu magac daray. Axmed oo dhanka kale dalalka reer galbeedku waxay ku eedeynayaan Ruushka inuu isticmaalay hubka kiimikada. Arrintaas bal iyadana ka waran. wararkaasi ku saabsan in Ruushka uu isticmaalay hub kiimika ah way markaasi soo tarayaan islamarkaana imika mar kale waxa ay sheegeen reer galbeedku inuu damacsan yahay in hubkaasi kiimikada uu adeegsado. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushka uu adeegsanayo dacayad muujinaysa inuu isku diyaarinayo inuu hubka kiimikada geeyo magaalooyinka dalka Ukraine. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in uu ku guuldareystay Ruushka in uu markaasi hadafkii dagaalka uu ka lahaa uu gaaro taasi oo ku qasbi karta ama uu micimbidi karo in hubka kiimikada uu isticmaalo. This is an effort that may seek to provide cover to Tani waa dadaal lagu raadinayo in lagu qariyo qorshayaasha suuragalka ah ee Ruushka si ay ugu adeegsadaan qaar ka mid ah hubka ugu foosha xun dadka reer Ukraine. Waxaan ka walaacsanahay sidaan horey u sheegay in Ruushku uu miciimbido isticmaalka hubka kiimikada ah. Waxaan ka walaacsanahay waxaan ognahay in Ruushku uu taariikh u leeyahay arrintan oo wuxuu horey hubkan ugu adeegsaday dadkooda gudaha Ruushka iyo waliba dhulka Yurub. these agents against its own people on Russian soil, on European soil. saxanuun saraakiisha Mareykanka dhanka kale waxay sheegeen in maamulka Biden uu isu diyaarinayo inuu ballaariyo barnaamijka hubka uu ku siinayo dalkaasi Ukraine. Mareykanku waxa uu horey u bixiyay $1.7 bilyan oo gargaar militari ah tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay waxaana ku jira hubkaasi uu siiyay gantaalada lidka taangiyada iyo kuwa lidka diyaaradaha kuwaasi oo door muhiim ka qaatay difaaca caasimadda Kiev. aad buu mahadsan yahay Axmed Badar oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee Ukraine. markana Mareykanka Minnesota maxkamadda federaalka ee ku taala gobolkaas ayaa xukun ku riday 2 nin oo reer Chicago ah kuwaas oo sanadkii 2017 qarax u geysay masaajid ay muslimiintu ku leeyihiin gobolkaas. maxkamadaynta 2 nin ayaa soo jiitamaysay ku dhawaad 5 sano waxaana si weyn uga dhur sugayay go'aanka maxkamadda muslimiinta Mareykanka.
sidii ay maxkamaddu xalay u dhacday iyo dareenka shacabka waxaa warbixin inooga diyaariyey wariye siyaad saciid saalax. michael mcwater oo 33 jir ah iyo john morris oo 26 jir ah ayaa ka mid ahaa 3 qof oo fuliyey weerar lagu qaaday xarunta islaamiga ee daala faaruuq ee magaalada bloomington ee gobolka minnesota sanadkii 2017. michael mcwater waxaa lagu xukumay ku dhowaad 16 sano doorkii uu ku lahaa qaraxii ka dhacay masaajidkaas, halka john morris isagana xukunkiisa uu noqday 14 sano. xaakinku wuxuu u daliishaday morris inuu ka da'yaraa ninka kale iyo caafimaadka maskaxdiisa oo aan wanaagsanayn. sanadkii tegey ayaa michael herry hogaamiyihii kooxdan lagu xukumay 53 sano oo xarig ah, waxaana ay raggani ka wada tirsanaayeen koox argagixisa oo midigta fog ah oo loo yaqaano maleeshiyaadka bakaylaha cad. alxamdulilah maanta waxay ahayd maalin nooga duwan maalinkii hore ee 2 goor bay maxkamadan dhacday, 2 loo kala qaybiyey. waa iimaan maxamed cumar carab, agaasimaha fulinta ee xarunta daala faaruuq, oo iga waramay inay ku niyadsan yihiin xukunkii dhacay iyo kii sanadkii hore ku dhacay hogaamiyaha kooxdan. ninkii watay maxkamadda odayga u ahaa iyo niman dhalinyara uu soo habaabiyey uu soo mataqaanaa isheeg marin habaabiyey. marka ninkii watay alxamdulilah waan aad baan uga dagaalanay. alxamdulilah ninkaas waxaa lagu xukumay 53 sano oo markaa tusayso inuu cumri daa'im ku jiri doono xabsiga. waana nin aan markaan la hadalnay ama aan maxkamadda xataa joognay ogolayn inuu xataa cudurdaar ka bixiyo, aaminsan inaan nahay dad mataqaana isha u qalma waxa uu sameeyey. kaa marka waan ka guulaysanay. imaan maxamed carab ayaa ii sheegay inay ka hadleen maxkamadda kana codsadeen in loo naxariista mcwater iyo morris, isaga oo ku tilmaamay inay ahaayeen 2 nin oo dhalinyara oo la marin habaabiyey xukunkana loo qafiifiyo. maanta waxaa fursad noo siiyey qaadiga inaan wax ka dhahno oon go-aankooda maanta aan codsi aan bixino, si maadaama aan nahay dadka la qarxiyey, maadaama dadka dhibaatada gaartay aan nahay. wuxuu noo soo bandhigay qaadigu inay 50 ilaa iyo 53 sano oo mid kasta u qalmo, laakiin annaga ay nagu xiran tahay ama annaga ay tahay qaybta ugu badan inaan wixii aan dhahno ay wax ku qaadanayo. taas marka waxaan qaadanay annaga cafiskaan qaadanay, waxaan qaadanay inaan dhahno maadaama ilaahi subxaana watacaala uu naga badbaadiyey maalinkaas, maadaama diinteenna ay tahay diin cafis, maadaama bil ramadaan lagu jiro, maadaama aan nahay dadka muslimiinta dadka loogu talagalay bini'aadanimada inay badbaadiyaan, inaan annaga markaa mubaadarada la nimaadno oo annaga aan gacanta sare yeelanno, diinteennu ay yeelato sharaftii ammaanta. markaasna aan waxaan cafinay u hadalnay 2 nin oo dhalinyaro ah oo wax badan aan markaas sheegeen qorshaha qabanqaabinta iyo isku dubaridka qaraxii aan ku lahayn. sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ka mid ah culummada Soomaaliyeed ee khudbado badan kaga hadlay isdhexgalka dadyowga kala duwan ee dunida magaaladana marti ku ah, baan wax ka weydiiyey tallaabadan wax laga baran karo. anu maadaama aan marti ahay arrintaa horta waan ku farxay. darsiga ugu weyn ee ka baran karaan risaalad weeye loo dirayo dadkan lala degan yahay aan muslimiinta aan hayn, inuu islaamku suuradda la siiyo uunan hayn oo suuradda leeyahay nebigu suu sallallahu alayhi wasallam fatxu maka idhabuu fa antum tulaqah, iska taga waad xor baa tihiin. alcafwu cinda almaqdira, qofku marka uu karti u yeeshay inuu qofka ka argoosan kari ka argoosto inuu iska dhaafi karo. ducada aan akhrino ramadaankii allahumma innaka cafuwun tuhibbul afwa fa'fu canna, inuu ilaahay dambi dhaafka jecel yahay adiguna dadka inaa u dhaaftida fiican tahay. risaalada kale waxay soo saaraysaa suuradda dadka muslimiinta ee wada noolaashaha, ilbaxnimada muslimiinta soo saaraysaa, isku dhawaashahay ka qayb galaysaa, wadankan la wada leeyahay ee lagu wada nool yahay, in gacmaha laisku qorsi loo dhisi lahaa baabi'inta xumaanta dadka ku jirtay baabi'inaysaa. sahre mire maxamed oo ka mid ah haweenka masaajidkan ku xiran ayaa iiga warantay cabsida xilliga qaraxa uu dhacay ay la kulmeen iyo xukunkii shalay dhacay. markii aan maqlay masaajidkan in la qarxiyey aad ayaan u kurbooday, aad ayaan u baqay, aad ayaan u cabsaday, maadaama annagoo dumar iyo ragba aadna loo eeganayo, maadaama diinteenna ay dadku u haystaan inay cabsi tahay oo loo qaatay inay xijaabka dumarkaoo kaleetood in lagu fiirsado. cabsi iyo welwel bayna gelisa annaga xilli walba waa aad baan u imaadaa, waan ka baqay inaan imaado, ilmahayga xataa waa la baqay. marka insha allah wax walbaba kheyr ilaahay hana xaftiya annagoo dhan. sidee u aragtaa marka maxkamaddu maanta sida ay u dhacday? si cadaalada u dhacday, weliba waa u naxariisanaysaan nimankaani tegi, maadaamay diinteennu dad aad u naxariista aan nahay oo diinteennu ay naxariis aad uga hadasho. siyaad saciid saalax oo warbixintaas inoo soo diray aad buu u mahadsan yahay. qaar ka mid a dhegaystayaasheena facebooka ayaa qodobkan fikirkooda ka dhiibtay. waxaa ka mid a sayid cumar cusmaan cabdulle oo jooga dhuusamareeb. waxa uu leeyahay waan bogaadinayaa 2 nin ee weeraray masaajidka ay muslimiintu ku leeyihiin maraykanka ay maxkamaddu xukuntay, waayo waa muhiim in la marsiiyo nimanka ciqaab adag oo u dhiganta dembiga ay ka galeen muslimiinta maraykanka. halka aad weli nagala socotaan waa b b c.
b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa cambaareeyay weeraro isxigxigay oo ay ku dhinteen in ka badan 150 qof. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Plateau ee dhaca bartamaha dalka Nigeria. waa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay geystaan kooxaha burcadda ah ee afduubka iyo dilalka ka geysta waqooyiga Nigeria. Axmed Badar ayaa warbixinta warkaasi inoo haya. madaxweyne Muhammadu Buhari oo markii ugu horeysay si toos uga hadlay dilalka dhacay xaddi waxa uu sheegay in dambiilayaasha aan la cafin doonin isla markaana aan loo naxariisan doonin isagoo ku tilmaamay inay ahaayeen weeraro argagixiso. madaxweyne Buhari ayaa ku amray ciidamada ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyay dilalkaasi si degdeg ahna loo horkeeno cadaaladda. waxa uu intaa ku daray inay waajib tahay in nabad ay ku soo laabato dalka Nigeria. bayaan uu soo saaray fiidnimadii Talaadada ayaa sidoo kale waxa uu madaxweynaha Nigeria tacsi u diray qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii la dilay. kooxaha hubeysan oo watay 10 mooto ayaa si bareer ah dadkani u dilay uguna gubay 10 guri oo ku yaalay 4 tuulo oo ka tirsan deegaanka Kanama ee gobolka Plateau. weerarka ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay barakac baahsan isla markaana waxaa guryahooda ka cararay 100 qof. tuulooyinka ay dhibaatadani ka dhacday waxa ay kala yihiin Gayambu, Kawa, Gayaram iyo waliba Dongor. inta badan dadka dhintay ayaa lagu aasay xabaal wadareedyada ay socdaan badigoob ka midadka dad kale oo la rumaysan yahay inay ku jiraan kaymaha ku dhow tuulooyinkaasi. dadka dhintay ayaa intooda badan la toogtay xilli ay isku dayeen in goobta ay ka baxsadaan. dadkii ku dhaawacmay waxaa sidoo kale loo qaaday dhowr isbitaal oo dalkaasi ku yaala waxaana intooda badan ay qabeen dhaawacyo risaas. waxa ay noqon kartaa mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa tan iyo markii kooxaha hubeysan ay bilaabeen 10 sano ka hor dilal iyo afduub madax furasho ay ku dalbanayaan waqooyiga Nigeria. dowladda Nigeria ayaa wajahaysa dhaleecayn badan oo ku aadan inay ku guuldareysatay inay wax ka qabato weerarada sii kordhaya ee halkaasi ka jira oo ay geysanayaan kooxaha burcadda iyadoo ay jirto in dowladda halkaasi ay geystay ciidamo badan. aad buu mahadsan yahay Axmed Badar. markana Soomaaliya. dhowaan qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay sheegtay in kumanaan carruura ay halis ugu jiraan inay gaajo u dhintaan bilaha soo aadan. sidaas oo ay tahay dalka weli waxaa ka jira abaaro daran oo saameeyay dadka iyo dunyadaba. waxaa la isweydiinayaa halka uu marayo gargaarkii loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen oo la leeyahay waayadan dambe gaabis ayaaba ku yimid. haddaba su'aalo la xiriira arrimahaas waxaan weydiinay agaasimaha guddiga howlgalka gurmadka qaranka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdifataax Cabdinuur. waxa uuna u warramay wariyaha BBC-da Fartuun Ismaaciil Axmed. dowladda Soomaaliya si taxadar leh bay ula socotaa xaaladda abaaraha dalku ku sugan yahay. sidaa la socotaba dowladda Soomaaliya bishii November waxa ay ku dhawaaqday in dalku galay xaalad degdeg oo bini'aadanimo. sidoo kale isla bisha ra'iisul wasaaraha dalku wuxuu diray baaq caalami ah oo beesha caalamkii saaxiibada Soomaalida ah iyo bulshada Soomaaliyeedba uu ka codsanayo in dadka abaartu saameysay loo gurmado. ilaa xilligaas abaartu waa ay ku socotay xawaare xoog leh waxayna haddaba gaarsiisan tahay dadka abaartu saameysay ilaa 9.6 milyan oo qof oo Soomaaliya in ku dhow 500 kun oo Soomaali ahna waa ku barakaceen. sidoo kale caruuro da'doodu aad u yar tahay oo ilaa 1 milyan iyo bar gaari kara ayaa iyaguna ku sugan xaalad cunto la'aan iyo nafaqo xumo. in dalku haddii uu yaraado ambaba la waayaba roobkii guga ee bishan April la sugayay suurtagal u yahay ambaba qarka u saaran yahay in dalku galo xaalad macluul ah. maxaa xilligan keenay in qaramada midoobay ay walaaca intaa la eg muujiso xilli deegaanada qaar ay roobab ka da'een lagana yaabo in dadka ay rajo kale ka qabaan in roobab ay da'aan? runtii roobabkii hadda da'ay waxay ka da'een gobolada dhexe iyo waqooyi bari oo runtiina aadna waa u yaraa sidii la filayay ma ahayn. xilligii la rabay inuu socdana ma uusan gaarin. rajo badanna kama qabno. dhammaan tilmaamaha cimiladu waxay tilmaamayaan in roobku sidii la rabay ama loo baahnaa oo abaartu ay dadku uga kaban lahaayeen inuusan gaarsiisnayn. ilaahay baa qadarta haya waxaanu raxmaanka ka baryaynaa inuu ilaahay raxmadiisa u furo. laakiin arrintaa walaaca hadda soo kordhay waa arrin dowladda Soomaaliya in badanba ay daba socotay runtiina riixaysay. si dhowna beesha caalamka iyo qaramada arrinta abaaraha waa ugala saqaynaa. guddi heer qaran ah oo ra'iisul wasaaruhu sameeyey baa hawshaas ku howlan. marka ma u muuqataa in dowladda federaalka iyo maamuladuba ay ka mashquuleen howlaha gargaarka la gaarsiinayay ee dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ay uga mashquuleen howlaha doorashooyinka ee socda? horta runtu waxay tahay inay arrinta doorashadu dadka iyo dalkaba mashquulisay. waxaanad moodaa in abateed ka badantan abaaraha loo hayay arrintii doorashada ee dabada dheeraatay. hase ahaatee waxaa jira factories kale oo tiro badan oo ka duwaya
in ay yaraadaan dadaalkii la rabay gurmadka abaaraha marka loo barbardhigo abaarihii dalka soo maray hadda ka hor horta waxaad si u moodaa in dadkii daalayn oo maalin walba abaar joogto ah iyo fatahaad iyo dhibaatooyin kale ay muddo soo jiitamisay abaaruhu berigii hore waxay dhici jireen 10 sano mar waa soo yaraadeen hadda waxaad moodaa in markii dhexdaasa 5 sano mar dhacayeen haddana sanad kasta ayaanba abaari dhacaysa amba fatahaad taas oo runtii saldhig u ah saameynta cimilada iyo wasakhaynta hawada cimilada isbedelka halka uu gaarsiisan yahay waxay markaa ku tusaysaa in Soomaalidu dhibano u tahay climate change-ka adduunka ka dhacay runta haddaan kuu sheegana waxay tahay dhaqaalaha loo baahan yahay in abaartan Soomaaliya saameysay maanta kana darantii 2017 dhaqaalaha Soomaaliya ma haysato dadka Soomaalida ma haystaan lama huraan waxa ah marka in la helo in beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliga ee horta laga helo dhaqaalihii loo baahnaa waana sababta keentay in bishan dabayaaqadeeda ra'iisul wasaaruhu uu aadi doono Geneva si uu la kulmo saaxiibada beesha caalamka oo waliba madaxda ugu sareysa la kulmo si uu indhaha caalamka ugu soo jeediyo xaaladdan adag ee dalka Soomaaliya ku jirto maxaa keenaya in gargaar iyo dhaqaale oo degdeg ahba aan la gaarsiin ee dadkan ay abaaruhu saameeyeen oo haatan bal sheegay in ay gaajo dhimanayaan wallahi waa duruuf aad u adag hadda dad baadkii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda Soomaaliya waxa ka soo jawaabay dhowr dal oo aan saaxiibanahay oo ay ugu horeeyaan dalka Imaaraadka Sacuudiga Qatar wadamo kalena waan rajaynaynaa waxaan kaloo rajaynaynaa in wax badan iska bedeli doonaan marka uu ra'iisul wasaaruhu madaxda beesha caalamka kula kulmo Geneva waxa kaloo abaabul badan wada dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala duwan waxa hoos u yeelo dhacay dadaalkii qurba joogta dhaqaalaha lagu urin jiray dadka baahan dadka Soomaaliyeed runtii aad bay laftirkooda isku caawinayaan oo dadaal hadda waa bilow laakiin si la reebo maaha waana laga shaqeynayaa in la labajibaaro waa tahay marka Cad Fataax waxaad ka mid tahay guddiga qaran ee gargaarka abaaraha marka taa micnaheed hadda ma wuxuu yahay in howlo dhaqaale ama dad gargaar lagu gaarsiinayo dhanba aysan socon oo howlo gargaarba aan dadka loo fidinayn ma way socdaan saan kuu sheegay haddaba way yar yihiin laakiin waxaa yartii beesha caalamka ka imaanaysay waxaa yartii Soomaalida gudaheeda ka imaanaysay waxaana saameysay factories-kan kuu sheegay oo ah dhibaatooyinkii regionka ka dhacaysay Ethiopia kale iyo tii hadda Ukraine ka taaganba indhihii Soomaaliya waa laga wareejiyay waxaad moodaa wax aysan dhibaato ka jirin oo kale bay hadda uga dhigan tahay dadaal wuu socdaa laakiin aad buu uga yar yahay intii la rabay kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Cabdinuur oo ah agaasimaha guddiga howlgalka gurmadka qaranka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo u waramayay wariyaha BBC-da Fartuun Ismaaciil ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com dhagaystayaal markana sheeko xiiso badan oo naga soo gaartay gobolka Sanaag dugsiga Dayaxa oo ku yaala gobolka Sanaag waxa uu ka mid yahay dugsiyada ugu faca weyn dhulka Soomaalida waxaa la hirgeliyey sanadku markuu ahaa 1957 xilligaas oo ay wax ka baran jireen arday ka kala yimid deegaamo kala duwan iskuulka mar ayuu xirmay intii ay wadanka colaaduhu ka jireen balse waxaa dib u furay Somaliland sanadkii 2016 sanadkaas waxa uu ahaa markii ugu horeysay ee gabdhaha loo ogolaado inay dhigtaan iskuulka Dayaxa wariye Maxamed Xasan Dhalo ayaa iskuulkaas dhawaan tagay warbixintan ayuu inooga diyaariyay وصارت تاريخية دكسيga ku macallinku waxa uu gidaarka ka akhrinayaa raadadka taariikheed ee ku dhigan darbi la dhisay 64 sano ka hor waa iskuulka Dayaxa oo ku yaal gobolka Sanaag kaasi oo mar dhulkan u ahaa il waxbarasho oo lama jeerto Ismaaciil Maxamuud Jaamac maamulaha xilligan ee dugsiga Dayaxa ayaa taariikhda iskuulkan iiga waramay dawladda Ingiriiska ayaa dhistay wuxuu dhismaysu dhamaaday 1957 ayaa la galay iskuulka markaana waxa galay fasalkii afraad shanaad iyo lixaad ardaydii ugu horeysay waxay ka baxday 1960kii waxa uu ahaa dugsi dhexe oo looga yimaado deegaamo kala duwan dadkii ka baxayna waxaa ka mid ahaa Siciid Cali Muuse wariyihii hore ee BBC-da oo xasuustiisii iiga sheekeeyay waxa ahayd waqti aad u wanaagsan oo aan marnaba la iloobi karin waayo waxaan ahayn dhalinyaro ah dad dhalinyaro ah oo ka kala yimid magaalooyin fara badan Laascaanood Xudun Garadag Ceelaf Weyn Laasqoray Buraan iyo Ceergaabo intaasi ayay ka kala yimaadeen yani gobolada iyo degmooyinka bariga ah bay u badnaayeen waayo Dayaxa waxay ka mid ahayd dhowr iskuul oo hoy ah oo ardadu ay seexan jirtay oo aan ma garanaysaayay guryo loo raawaxa ay jiri jireen 1958 ilaa 73
oo uu ahaa hooy iyo waxbarasho waxaa wax ka dhigan jiray ragga oo keliya waxaase jirtay mar hal gabadhi buug u soo qaadatay sida uu b b c da u sheegay siciid cali muuse oo isagu iskuulkan ka baxay waxyaabaha la yaab kale ee ay ku ahayd caan ku ahayd ama iskuulladaasi boarding ahaa ee hoyga ahaa la seexan jiray waxaa ka mid ahaa iyadoon haba yaraatay gabdho dhigan iskuulladaasi oo ay wada ahaayeen wada wiilal marba waxaa jirtay gabadhi nala dhigan jirtay iskuulka dayaxa oo iyadu ahayd gabadh deganayd xaafadda meeshii aanu joognay meel u dhow guri aad deganayd oo ayaaba nala dhigatay waanu wada eegi jiray war gabadh baa iskuulkii timi ayaanu oran jiray laakiin waxay ahaa iskuulku meel xiisa badan dayaxa sanadkii ayaa dowladdii kacaanku ka dhigtay dugsi lagu barto cilmiga beeraha kaasi oo burburkii xirmay kadibna waxaa iskoolkan somalilan dib u howlgelisay sannadkii 2016 wuxuuse kii hore kaga duwan yahay in uu u furan yahay lab iyo dhadigba oo weliba 50% laga rabo in gabdhuhu wax ku bartaan waa kan ismaaciil maxamuud jaamac maamulaha dugsiga dayaxa oo ka sheekaynaya kan waa co-education waxa weeye wiilal iyo gabdho ayaa wada dhigta oo laakiin kala qaybsan furdadu kala qaybsan tahay barashadase kalaaska sheer gareeya kitchinku kala qaybsan yahay waxa loogu talagalay inuu ay wax ku bartaan ilaa 240 arday oo 50% ay noqonayaan gabdho laakiin gabdhuhu way ka yar yihiin inamada intii la doonayay lama gaadhin waa dawli sidii uu weligiiba u ahaa waxaana dhaqaalaha iskuulkan lagu dhisay ka yimi sanduuqa horumarinta Somaliland SDF socodsiinta hawlihiisuna waatuu ku jirta miisaaniyadda meel martay ardayda wax fee oo laga qaada ma jirto qof walbana wuxuu helayaa cuntadiisa oo dhameystiran waxbarashadiisa oo dhameystiran agabkiisa waxbarasho oo dhameystiran boqolkiiba boqolna waxa uu maalgelisay oo ardayda ka wada bixisa haday staafka noqon lahayd iyo hadii dhaqaalaha ardayda ku baxayay baahan lahayd dawladda Soomaaliland miisaaniyadda dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayay ku jirtaa marka waxa weeyaan wada iskuulka ay dawladdu ku tacabtay haday noqon lahayd hanti iyo maal iyo waxbarasho ay noqon lahayd ardayda meelaha ku kala baahi lahayn secretariat aan haysanna waxay u noqotay meel hooy ah maamulaha dugsigani waxa uu maanka ku hayaa in dayaxa magaceedii jiraagaha lagu nooleyn karo waxbarasho ka sareysa dugsiga sare ee hadda halka ka furan iskuul caadi ah meel buu jira marka iskuul secondary oo caadi ah baahi weyn looma qabo laakiin waxa baahi loo qabaa iskuul farsamo macadiiniya iskuul beereed jaamacad intaana uu noqon kara marka sidaas baan isleenahay mustaqbalka hadii dugsiga dayaxa waxa uu ku yaal dhul buuraley ah oo togaga ka dilaaca biyo jira ay leeyihiin erigaabana 24 kilomitir ayuu ka xigaa dhanka waqooyi degsiimo kooban ayaa halka degan maxamed xasan dhalo erigaabo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed xasan dhalo oo warbixintaas inooga soo diyaariyey iskuulka dayaxa oo ku yaala erigaabo markana wararka ciyaaraha rajadii ay Chelsea ku difaacanaysay hogaanka Champions Europe ayaa si xun loo soo afjaray inkastoo ay 2-3 ku garaacday Real Madrid ciyaarta xalay ka dhacday garoonka Bernabeu dhanka kalena ciyaarta xalay dhexmartay Bayern Munich iyo Villarreal ayaa ku soo idlaatay 1-1 Samuel Chukwueze ayaa gool soo daahay dhaliyay iyadoo ay Villarreal ka yaabisay Bayern Munich oo doonaysay inay gaarto semi-finalka Champions League markii ugu horeysay muddo 16 sano ah idaacaddii subaxnimo dhegaystayaal waxaa ugu dambeeyey wararkaas ciyaaraha waxaa soo saaray axmed bader halkanna waxaa idinkala socodsiinayay anigoo saxnuun axmed tan iyo intaan dib dambe u kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo